halkani waa banka Wajaale ee gobolka Gabiley wasiirada wasaaradaha beeraha iyo biyaha Soomaaliland ayaa si wada jir uga dhagax dhigay cilbiyood ay yeelan doonto magaalada Wajaale ayna munaafacaadsan doonto wasaaradda beeraha Soomaaliland si kor loogu qaado wax soo saarka dalka mas'uuliyiintii halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa ilaahay baa mahadle maanta waxa weeyaan waxaanu joognaa oo aynu doonaynaa inaynu dhagax dhigno ama bilowno qodaalkii ceelka Wajaale ceelka Wajaale loo qodayo mar labaad waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo biyahaasi iyo biyo la'aanta Wajaale aad iyo aad ugu dhagan nugul waxaan leenahay cimri dheer oo cibaadada Allah ku siiyo maanta waxaanu joognaa Wajaale oo runtii kambalka Wajaale oo maanta laga dhagax dhigayo lagana qodayo ceel loogu talagalay in ay ka faa'iideystaan deegaanka iyo xoololeyda ee ku dhaqan nawaaxigan Wajaale horta ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa in biyaha laynoogu deeqay wasaaraduna ay hormoodka ka tahay in ilaahay inoo fududeeyo ceelkan aynu maanta isugu nimid waa ceel dheer oo laga qodayo halkan ujeedooyin badan buu yeelanayaa mar waxaa loogu talagelayaa wasaaradda beeruhu inay ku beerato wixii ay u aragto dan in dalku u baahan yahay marna waa ceel looga faa'iideysan karo wixii kale ee loo dan la moodo hadday noqoto xoolo iyo haddii ay noqoto wax la xidhiidhaba sida uu injineerku noo sheegay kolley biyaha halkan ku jira way adag yihiin aad bay u adag yihiin laakiin gaaladu waxay tidhaahdaa xoogaagu haddaad xoogaa hayso waxay ka fiican yihiin waxba la'aanta sidaa daraaddeed sharaf bay noo tahay inaannu halkan aniga wasiirka beeruhu nimaadno dowladdu waa wada shaqaysaa waa laga yaabaa qayb inay ku konfiyus garoobaan laakiin ceelka biyaha wasaaradda biyaha ayaa leh sharciyan u leh laakiin isticmaalkiisa waxaa yeelan doonta wasaaradda beeraha runtii sharaf bay noo tahay inaan maanta dhagaxa dhigno ceelkan biyaha oo runtii aynu ka qodayno gobolka Gabiley degmada Wajaale sida wasiirku sheegay runtii wasaaraduhu shaqooyinka qaar bay iska soo galgalayaan laakiin waxaan wada leenahay wada shaqayn badan baan leenahay oo wasaaradda beeraha iyo wasaaradda deegaanka iyo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasaaradda horumarinta biyuhu inta waa tiim shaqooyinkooda inta badan isa soo galaan laakiin waxaanu xaq u leenahay mar walba inaanu isku ixtiraamno shaqada ceelkani runtii sida wasiirku sheegay waa ceel aan ugu talagalnay inaan wax soo saarka kor ugu qaadno waana ceelkii ugu horreeyey ee dalka laga qodo ee loogu talagalo dhinaca wax soo saarka dalka ka bilaabma koob badan oo kalena way iman doonaan wasiirka aad baan uga mahad celinayaa isagoo yahay wasiirkii biyaha wuxuu xaq u leeyahay inuu goobjoog ka noqdo inuu dhagaxa nala dhigo inuu maamulkiisa iyo hawshiisa oo dhan la socdo anagu waxaan wasaarad beer ahaan mas'uuliyaddeedu ay tahay markuu dhammaado inaanu ku shaqayno oo wax soo saarka kor ugu qaadno sidaad ogtiin banka Wajaale sanadkii dhaweyto waxaanu ka beernay ilaa 720 hektar oo raashina haddana sidii aan doonaynay uma dhicin sababtuna waxa weeye waxaanu ku talagalnay markii hore biyaha inoo da'ayo qura inaanu ku shaqayno marka waxaanu ogaanay in biyaha roobka inoo da'ayaan inta badan ayna sidii aan ugu talagalnay runtii ayna u diin aan sidii ugu talagalnay inaynu afaacin marka adduunka waxa la isticmaalaa sisan biyaha dhulka hoostiisa iyo wax soo saarka inta badan loo isticmaalaa gabagabadii waxay wasiiradani kormeer ku soo mareen ceelbiyood lagu kabayo ceelashii hore biyaha u siin jiray magaalada Gabiley ee xarunta gobolka waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Wadeen raadiyaha iyo telefishinka SBC magaalada Wajaale